allahuma asqi cibaadaka saana waa lagu duceeyaa ilaahayow addoommadaada waraabi iyo wabahaa'imaka xoolahaaga wanshur ku daadi oo ku firdhi raxmataka naxariistaada waxyi ilaahayow ku noolay roobka beledaka almayita beledkaaga markaa dhintay saana markaa waa loogu ducaystaa nebi sulaymaan ayaa la yidhi roobtuub u baxay asaga iyo qoonkiisa markay socdeen ayuu arkay quraysh lugaha kor u taagtoo tiri ilaahayow addoommadaada ka mid ah nahay maca daalika kama kaaftoonno roobkaaga ee ilaahayow na roobey iska noqdou dhahay ducaqiirkiina laydinku waraabiyey qurayshadaasaa u hadlaysa maca daalika dadkii maanta insaanka ahaa oo ilaahay inay caabudaan la rabayna shirkiya waxyaabo kale qabriya shardi laga xira haddii roob markaa la rabo waa dhib adducaau idaa nazala almatar haddana waa roobka hadduu soo dego wixii la dhihi lahaa allahuma sayiban ilaahayow nagu shubdheh naafican asagoo nafci leh oo waxtar leh saasaa la dhahaa markuu roobku degaayo oo markaa soo baxo waxaa la samayn karaa qofkii inuu kuleetigiisa furo si uu roobku markaa ugu da'o waa markuu cusub yahay ilaan rasuulka mar allaala markuu roobka cusub yimaado wuxuu furi jiray kuleetigiisa markaasuu dhihi jiray xadiidu lcahdi waa cinda rabbihi hadduu ilaahay agtiisa ka yimid subxaana wa tacaala addikru bacda nuzuuli lmatari roobku markuu dhammaado ama uu soo dega ka gadaal waxaana la baraa wax walba oo diinteenna markaa ah haddii roobku dhammaada maxaad dhahaysaa mutirnaa bifadli illaahi wa raxmatihi fadli ilaahay iyo naxariistii ilaahay ayaa nala ku waraabiyey min adciyati istisxaa'i marka qofka roobka uu ka bato ama roobka la raba in laga qaado kor oo dadka laga kor qaado wixii la dhihi lahaa allahuma xawaalayna ilaahayow gaararkeena yeel walaa calaynaa korkeena ha yeelin allahuma ilaahayow cala alaakaami buuraha noogeey iyo waldiraabi waa buuraha waaweyn kuwa ka sokeeya wa butuuni alawdiyati waadiyaalka meelaha biyaha fadhiista caloolahooda iyo wa manaabiti shajari meelaha geedaha iyo dhirta ay ka soo baxaan ilaahu roobka noogeey saasaa markaa la dhahaa haddii laga cabsado roobka inuu magaalada baabi'iyo ducaau ru'yati alhilaali waa bisha marka la arka wixii la dhihi lahaa bilay bilcaanay dhahaan dadka laakiin wax kama jira allahu akbar dheh allahuma ahilhu calayna allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan ilaahu noogu dhali korkeena aamin ahaasha iyo iimaan wاsalaamati wاlislaami nabadgelya iyo islaamnimo wاtawfiiqi iyo waafaqin limaa tuxibu rabbana rabbigeen waxa uu jecel yahay inaan waafaqno bishaan aan samayno wata limaa tuxibu rabbuna rabbigeena waxaad jeceshahay oo watarda aad ka raali tahay rabbuna rabbigeen iyo wa rabbuka rabbigaa bilay allahu ilaahay waaye sidaa dhee markaad bisha aragto bisha markay soo baxday weliba ay tahay mid aad iyo aad u yar ahilla ah oo markaa curatoo dhalatay saasaa la dhaha wayas'aluunaka cani alahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi buu dhahay ilaahay adducaa ducadii waaye cinda iftaari asaa'imi marka saa'imka uu afuraya agteeda wixii markaa uu ku ducaysto waa cinda iftaari saa'imi biyihii ayaad cabtay maxaad dhahaysaa dahaba adama'u oonkii waa tegey wabtallat alcuruuqu xididadii way qoyeen wahabata alajaru ajirkiyaa dhiman waa sugnaan doonaa in shaa allahu haddii ilaah yidhaahdo subxaana wa tacaala maantao dhan waa soo soonnay ilaahayow biyihii aadna fasaxday caba aadna tiri ayaan cabnay oonkii waa baxay xididadii biyaha waa gaareen oo aad ayay u qoyeen way qalalnaayeene ajirkana waa sugnaanaa ilaa xaggiisuuna ka sugnaana subxaana wa tacaala waxaad kaloo dhahaysaa allahuma ilaahayow inii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa biraxmatika naxariistaada allatii naxariistaasoo wasicad waasic kaga noqotay kulla shayin shay kasta an takfira lii inaad ii dembi dhaafto maantoo dhan buu soomanaa ilaahay dartiisuu afkiisa u xirnaa weli dembi dhaafuu raadinaa qofka muuminkaa cajiib u ah amaa dembi kalaad maqlaysaa maanta markaan astakfirullah dhahaayo adoon gelin iyo adoo gashay labadaba waa lagaa rabaa rasuulkaa lagu dhahay fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu dembi dhaafna weydiisa inahu kaana tawaaban alla wuxuu ahaan jiray haddana yahay ahaana doonaa tawaab toobad aqbal badan allahuma inii as'aluka biraxmatika rabbow naxariistaada allatii wasicat kulla shayin ayaan kugu su'aashay an takfira lii adducaau qabla aطacaami intaan cuntada la cunin wixii la dhihi lahaa faidaa akala axadukum axadkiin markuu cunaya طacaaman cunto falyaqul ha dhaho bismi illaah bismi illaahi ku bilow maxaa bismi illaahi lagu bilaabaa maanta fain nasiya hadduu hilmaamo fii awalihi markii hore inuu bismi illaahi dhaho ilay shayطaan iyo nafa isla socotee falyaqul ha dhaho bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi saasuu dhahayaa markuu soo xasuusta nin baa rasuulka agtiisa wax ku cunayaa la yidhi ninkii bisinka ayuu hilmaamay ninkii cabaar ayuu cunay intaa ka gadaal ayaa waxaa dhacday inuu markii wax yar ama hal luqmay u dhigneed oo dhahay bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi rasuulku wuu qoslay sala allahu calayh wasalam
maxaa ku qosashay ayaa la yidhi nebiga. markaasuu dhahay ninkan markuu cunaya shayطaana la cunaya usii jeeday. bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi markuu yidhina shayطaanku wuxuu soo matagay wax allaale wixii hore caloosha ugu galay. taasuu nebigu aad ugu qoslay. marka shayطaanka waa inaan raashin la siinin. man acamahu allahu, qofkuu ilaahay aطacaama cunta ku quudiyo falyaqul ha dhaho allahuma baarik lana fiihi, ilaahu noo barakay, waacimnaa khayran minhu, khayrna nagu quudi. waman saqaahu allahu labanan, qofkuu ilaahay caana ku waraabiyo falyaqul ha dhaho allahuma baarik lana fiihi wazidna minhu, ilaahu noo barakay noona ziyaadi. wixii yaree nala siiyey wixii badanoo nala siiyey waa inaan ilaahay ugu mahad celinaa. waa haysanaa maanta wax kalaa la dalba oo la raadinaa, xalaal iyo xaaraan waxay ahaataba. xalaal keliya haddii lagu raadin lahaa waxay ahaan lahayd. caana haddii la waraabiyana qofka saasuu dhaca adducaau cinda alfiraaqi min aطacaami. markuu cuntada faaruqa agteeda wuxuu dhihi lahaa qofka alxamdu lilahi aladii acamanii haada, ilaahay baa mahad iskale midkaan igu quudiya warazaqaniihi acamanii minhu oo warazaqanii igu arsuqay min gayri xawlin minii, tab la'aan iyo walaa quwatin xoog la'aan. raashinkan aniga xooggaygana ma ku keensan kari, caqli iyo siyaasad aan leeya oon ku keensan karana ma laha. ilaahay ayaa ii qadaray oo markaa isiiyey sidaa dheh. anaa shaqaystaa taala maanta, shahaadadeedaan ku helay, xirfadeyda kuma helin. meeqaa kaa xirfad badan oo kaa caqli badan oo kaa xoog badan oo waxay cunaan aan haysanin waay. maca dalika waa mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala. ina allaha huwa arazaaqu dulquwati matiin min gayri xawlin minii walaa quwa. waxaad kaloo dhahaysaa alxamdu lilahi, ilaahay baa mahad iska leh, xamdan kaiiran طayiban, mahad badan oo wanaagsan, mubaarakan fiihi baraka leh, gayra mukfiin walaa muwadacin walaa mustagnan canhu rabbana. ilaahay waa ayra mubaarakan fiihi oo gayra makfiyin, mid makfi ah ama laga kaaftoomo kayrkiis ah, walaa muwadacin mid muwadac ahoo la sagootiyo ama laga tago kayrkii ah, walaa mustagnan canhu aana laga kaaftoomi karin xaggiisa rabbana. rabbigeenna saas ah ayaa mahad iskale, mahad badan oo baaraka leh. ducaau dayfi lisaaxibi aطacaam, martida markay kuu soo martido cuntana aad siiso, wixii dayfka ay ugu ducayn lahaayeen ninka tacaamka u sameeyey ducadeedii waaye. haye martiyaa tahay, maxaad dhahaysaa allahuma baarik lahum fiima razaqtahum, ilaahayow u barakay ehelkaana wax siiyey waxaad ku arsuqday. waqfir lahum, u dembi dhaaf oo warxamhum, u naxariiso una dembi dhaaf una naxariisa. maxaa marti maanta ducaysaaba gurigay ku mashquulsan yihiin ilaa heer la gaaray la dhaho martida waa fiiro munaafiq iyo fadhi mu'min. waa waxaan wax ka jirin waay. munaafiqnimay wax u fiiriyaan, guryaha wixii ka maqan si dadka isugu diraan. maca dalika sidaa dheh allahuma baarik lahum fiima razaqtahum, ilaa waxaad ku arsuqday u barakay. waqfir lahum, una dembi dhaaf warxamhum. adducaau liman saqaahu, qofkii la waraabiyo, ow idaa araada dalika, ow amase idaa araada haddii uu doono dalika arrintaa, wixii markaa uu dhihi lahaa allahuma acim man acamanii, ilaahu iquudi qofkii iquudiyey, wasqi man saqaani, qofkii ii waraabiyey ilaahayo waraabi. sidaa markaa dheh, ilan qof kasta oo qof wax siiya ilaaha sabab uga dhigo u soo qaaday, ilaahayna bedelkiisu siiya subxaana wa tacaala. adducaau duca waaye idaa aftara, haddii uu afuro qofka cinda ahli beytin, ahlu beyt agtooda hadduu ka afuro. nala soo afuraa lagu dhahay maanta. mar allaala markaad afurka dhammaysaa dhin turubkii aawa la ciyaari lahaa. laakiin dheh aftara cindakum asaa'imuun, agtiina saa'imiinta ha ka afuraano. waakala طacaamakum alabraaru, baariyaashana raashinkiina ha cunaano. wasallat calaykum almalaa'ikatu, malaa'igtana ha idin dembi dhaaf weydiiso, ha idin ducayso. sidaa dheh dadkaad ka afurta agtooda. ducaau saa'imi, ninka sooman ducadiisa waay idaa xadara طacaamu, haddii طacaam agtiisa la keeno walam yuftir, uusana markaa afuraynin, wuu sooman yahay agtiisaa wax lagu cunay. maxaa samaynaysaa? idaa duciya haddii loo waca buu dhahay nebiga axadakum axadkiin falyujib, ha ajiibo. dadaa cazuumo qabaan amase waxbay qabaan xaflad, kaale baa lagu yidhi noo imow, waa inaad tagtaa xataa haddaad sooman tahay. fain kaana saa'iman, hadduu qofku saa'im yahay falyusalli, ha usoo duceeyo dadkii hana ka soo tago. wain kaana muftiran, hadduu afuran yahay falyadcam, ha quuto, ha soo cuno. wamacnaa falyusalli ay falyadcu, ha usoo duceeyaa loola jeedaa. saasaad markaa samaynaysaa. soonku hadduu soon sunaa yahay waad iska furin kartaa. dadka kuu wacay inaad ajiibto soonka aad furtaa fiican oo aad la cunto, waa soonka hadduu sunno yahay. hadduu soonku waajib yahay ramadaanka oo kale, ama qale la gudaayo uu yahay, amase mid nadara uu yahay, waa waajibnime, intaa lama furi karo. ama suno caadi yahay, itniin iyo khamiis iyo ayaamulbiid iyo soomo suno adiga aad soomaysa, hadday dad ku wacaan inaad ajiibto way fiican tahay. haddaad iska furayninna u tag labada mar, una soo duceey kana soo tag. maa yaquulu saa'imu
saa'imku wuxuu dhihi lahaa idaa saabahu axadun hadduu axad caayo adoo soomanaa lagu caay admaa kaa tabar yar iyo ma anaa iga caay badan tahay ha dhihin innii saa'imun innii saa'imun innii saa'imun ani waa soomanahay waatuu rasuulku tilmaamay fain saabahu axadun aw qaatala haddii axad caayo ama uu la dagaalamo falyaqul inii imru'u saa'im ha dhaho anigu qof soomana ahay maanta waa lays caayaa waana la sooman yahay waa lays dagaalaa waana la sooman yahay waa laysku buuqaa waana la sooman yahay beeca dadka lagu dhacaa waana la sooman yahay waa lays xamanaa waana la sooman yahay innii saa'im dheh ani afkeyga ilaahayuu u xihan yahay caayda iga dhaaf waa qofkii ku caaya iska dhaaf qof adi caay aad ku bilowdeen kii ku caayaa layidhi ha ka aarsani adducaau duca waaye cinda ru'yati aragtida agteeda baakuurati tamari tamarka iyo miraha baakuuradooda baakuura waxaa loola jeedaa marka ugu horeeya ay fiidu soo baxsato oo mirihii ay soo bixi rabaan beeraha wixii la dhihi lahaa allahuma baarik lana ilaahu noo barakee dheh fii tamarina miraheena wabaarik lana fii madiinatina magaaladeenna noo barakee wabaarik lana